أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha igu xiran iyo dhammaan walaal kastoo soo buuqda aad ayaan idin salaamayaa. waxaan ilaahay waqti waa idiin wacnaado. kusoo dhawaada qisadani sheekadan oo ka mid ah sheekooyinka ramadaanta. waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo maanta sheekada Ummul Mu'miniin Khadiija binti Khuwaylid oo ahayd xaaskii Nabi Maxamed calayhi salaatu wassalaam, oona ahayd xaaskiisii ugu horreysay. Khadiija binti Khuwaylid waxaa lagu magacaabi jiray Khadiija binti Khuwaylid bin Asad bin Cabdulcuzza bin Qusay al-Qurashi al-Asadi. hooyadeedna waxaa lagu magacaabi jiray Faatima binti Zaa'ida binti Jundub. waxayna nabiga calayhi salaatu wassalaam ay ku kulmaan abtirsiinta shanaad. halkaana waxay ka dhigan tahay inay Khadiija binti Khuwaylid ay tahay xaasaska Nabi Maxamed calayhi salaatu wassalaam, xaaskii ay iskugu dhawaayeen xagga qaraabada ama nasabka marka laga hadlayo. Khadiija binti Khuwaylid waxay ahayd haweeney ilaahay siiyey karti iyo lacag iyo wanaag oo dhan oo ka dhex muuqatay markaas Quraysh, iyadoo markaa ku jirta dadka ugu lacagta iyo hantida leh magaalada. lacagtaasoo la yidhaha waxay ka dhaxashay zawjkeedii zawj hore oo ka geeriyooday. waxayna runtii guriga ay ku dhalateen waxaa guri aad iyo aad u wanaagsan oo akhlaaq iyo makaarib iyo wax walba loogu yimaado iyo wanaag oo dhan aqal ku sifoobay ay ku dhalatay Khadiija binti Khuwaylid. waxayna dhalatay sanadkii 68 ee hijrada ka hor, qabla الهجرة caam 68 qabla الهجرة, inta lasoo hijiro 68 sano ka hor 68 sano ka hor ayay dhalatay. qof waxay ahayd cafiifada oo dhowrsoon, iyadii oo runtii nasab wanaagsan kasoo jeeda. waxayna ahayd xaaskii ugu horreeyay Nabi Maxamed calayhi salaatu wassalaam, iyadii oo laga dhex yaqaano saan soo sheegay magaalada Maka. tijaarada ay lahayd ama lacagta hantida ay lahayd oo inta badan ay u safri jirtay, safarra badan ay u bixi jirtay bilaada Shaam iyo dhulka ay ka keeni jirtay badaacada, ayaa badanaa waxay u qabsan jirtay rag runtii iyaguba rag wanaagsan oo aamina ay inta badan qabsan jirtay oo ugu shaqayn jiray lacagteeda. waxaa dhacday inay maqashay Nabi Maxamed calayhi salaatu wassalaam dadka oo ka sheekeynayo leh ama ku magacaabaya ku naanaysaya oo leh as-saadiq al-amiin, run sheegihii aaminka ahaa. ay runtii maqashay, markaasay u dirtay si loogu yeedho. markii loogu yeedhay, runtii sifaadka Nabi Maxamed calayhi salaatu wassalaam xilligaa lahaana wax naadira xilligaas, ama qof sifooyinkaa lihi way yarayd. iyadoo aad ula tacajubtay markii loogu yeedhay ayaa waxay ka dalbatay inuu ugu shaqeeyo ama uu uga shaqeeyo baaca mushtarkeeda, awna u kaxeeyo qaafilo ama safar markii ay u diraysay bilaada Shaam. Nabi Maxamed calayhi salaatu wassalaam wuu aqbalay, sidii ayuuna safarkeedii ugu horreeyay oo ugu kaxeeyey bilaada Shaam, dhulka arda Shaam la yidhaah, iyadoo ku dartay markaa wiil yar u shaqayn jiray iyada oo la oran jiray maysara la oran jiray. maysara oo markaa Khadiija u shaqayn jiray ayaa runtii markay israaceen Nabi Maxamed intay dariiqa ku jireen waxyaabo fara badan ayuu ka arkayay, wanaagiisa akhlaaqdiisa waxyaabo fara badan ayuu ka arkayay. waxaa dhacday markay Shaam tegeen inuu nebigu fadhiistay geedaha ka mid, inuu hoos fadhiisto ugu nasto. marka ayaa waxaa agdeganaa raahib ama raggan yuhuudda ee faaliyayaasha ayaa agdeganaa geedka. markuu soo baxay ayuu wiilkii yaraa weydiiyey maysara, wuxuuna ka yidhi waayo qofkan kula socda geedka hoos fadhiya. markaasuu sheegay uu yidhi waxa weeyaan wuxuu ila wadaa tijaaradan ayaan isla wadnaa. raahibka oo markaa aad ula tacajubay baa wuxuu u sheegay wiilka yar inuu geedkan ayna cidi hoos fadhiisan, cid nebiya mooyaane inay cid kale weligeed hoos fadhiisan, ambiyada unbaa geedkan hoos fadhiista ayuu ka yidhi. wiilkii yaraayo tacajuban oo haddana kasii tacajuba waxyaabo fara badan, sida inay cadceedu markay kulushahay daruur oo kale nebiga calayhi salaatu wassalaam ay dul joogto, ayaa waxa ay kusoo noqdeen iyagu tijaaradoodii kusoo guuleystay oo runtii lacag badan qaafiladii ay wado.
ay kusoo noqdeen Khadiija. Markaasuu Maysara uga sheekeeyey Khadiija radiallahu canha waxyaabuhu kala soo kulmay intii dee safarka ay ku jiray Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. aad iyo aad ayay ula tacajubtay. muddo kadib Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo Khadiija radiallahu canha umulmu'miniin ayaa waxaa dhacay guurkoodii 15 sano ka hor intayna diinta lagu soo dejin Nabi Maxamed ayaa guurkoodu dhacay. xilligaas Khadiija cimrigeedu ahaa 40 jir, Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ahaa 25 jir. waxayna runtii cilaaqadoodu ay ahayd cilaaqad ku saleysan Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo xaaskiisa Khadiija waxay ahayd cilaaqad ku sameysan jacayl, is-afgarad iyo is-ixtiraam iyo ballan oofin iyo waxyaabo fara badan oo looga baahan yahay qoys walba inuu ku dhaqmo ay runtii ku sifoobeen. markii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam risaalada lagu soo dejiyey Khadiija waxay ahayd radiallahu canha qofkii ugu horreeyay ee aaminay ama rumaystay ay ahayd. xilligaasuu Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku sugnaan jiray qaar Xiraa meel layraa oo ku qaadan jiray waqtiyadiisa oo marar badan uu jeclaan jiray inuu keli ahaado uu tegi jiray qaar Xiraa. markii Malik Jibriil calayhi salaam uu kusoo dejiyey waxyiga ayaa waxaa dhacday Nabi Maxamed kasoo baxay qaar Xiraa isagii oo naxsan markii ay suuraddii ugu horreysay kusoo degtay ee suurat al-Calaq. kii oo naxsan markii guriga kusoo noqday ay Khadiija aragtay oo ka yidhi idada zamiluni ay ka wareysatay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii kusoo dhacay oo markii uu sheegay runtii waxay ka tiri waxaad tahay qof wanaagsan, qof qaraabada xiriiriya, qof saadiqa amiina oo runsheega oo ballanta oofiya oo aamina, adiga oo sifaadkaa wanaagsan oo dhan ku sifoobay ilaahay marna kuma dayacayo, qof wanaagsan ayaa tahay, niyadaada khayr sheeg ayay ka tiri. kadib waxay u kaxaysay Nabi Maxamed in adeerkeed oo Waraqa bin Nawfal la oran jiray oo Khadiija ilmaadeer ahaayeen oo markaa cilmi falaga ka warrami jiray ama faalin jiray. markii looga warramay waxyaabaha Nabi Maxamed uu la soo kulmay calayhi salaatu wasalaam ayaa Waraqa bin Nawfal wuxuu leeyahay waa waxyi weeyaan waxa kugu soo degay waa waxyi kusoo degay Nabi Muuse calayhi salaam oo kale ayaa kugu soo degay. sidaas ayay ku yaqiinsanayaan inuu waxyi kusoo degay Nabi Maxamed. intii ka dambeysayna dee ilaahay step by step uu kusoo dejinayay ama ayar Nabi Maxamed loogu soo dejinayay waxyiga iyo qur-aanka. Khadiijo oo mar walba garab ku siinaysay oo hantideedii, lacagteedii iyo nafteedii wax walba u hurtay si diinta islaamka oo Nabi Maxamed u faafiyo. oo marar badan xataa markii ugu horreysay ay shacaab Maka agagaarka Maka ay waqti badan ay xilligii la ceyrsanayay Nabi Maxamed ee cadowga badan ee Quraysh oo yeeshay la dilay la rabay waxyaabo badan lagu sameynayay. qofkii garabkiisa soo garab istaagay ugu horreeyay iyada ayay ahayd iyadoo la soo sabraysay oo shacaab Maka la yiraahdo 3 sanadood xataa markii ugu horreysay la soo joogtay 3 sanadood ugu adkaa ee ugu horreysay iyadii oo Khadiija runtii cilaaqada ka dhaxaysay Nabi Maxamed aad u wanaagsanaa ayaa Nabigu calayhi salaatu wasalaam markii ay geeriyootay wuxuu u sheegay saxaabada uu yidhi innii rusuqtu xubbahaa waxa laygu arsaaqay jacaylkeyga. mar walbana wuxuu ahaan jiray Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam kii ku faana xaaskiisa Khadiija ee wanaaggeega muujiya ee runtii mar walbana ku faraxsan. Nabi Jibriil oo lagu soo dejiyey oo u yimid Nabi Maxamed Malik Jibriil yaraalahaada Malik Jibriil calayhi salaam oo lagu soo dejiyey oo waxyiga u soo dejiyey Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa maalmaha ka midana u yimid isagii oo salaan uga sida ilaahay iyo isaga oo ka leeyahay waxaad naga gaarsiisaa Khadiija in ilaahay soo salaamay aniguna aan salaamayo waxaanad ugu bishaaraysaa in guri jannada looga dhisay. maasha Allah yani waa amazing haweeney wanaagsan oo caabidada oo ilaahay rumaysay oo dadkii ugu horreeyay Nabi Maxamed garab istaagay aaminay ahayd ayaa waxaa ilaahay kusoo abaal marinayaa inuu ilaahay samada ugu sarreysa kasoo salaamayo laguna bishaareynayo guri aynay ku leedahay jannada. yani maasha Allah yani wax aad iyo aad u farxad badan una runtii qiiro badan. Caasha radiallahu canha umulmu'mina Caasha ayaa marar badan ka sheekeynaysa cilaaqada Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo Khadiija iyadoo sheegtay marar badan inuu mar walba sadaqada u bixin jiray oo intuu neef u qalo oo dadka siin jiray isagoo Khadiija ugu sadaqadeysanaya
isagoo haddana mar walba xiriirin jiray dadka xiriirka la lahayd mar walbana hadal hayn jiray taasoo marar badan ay Caasha radiallahu canha ka hinaasi jirtay xataa ay marar badan ay ka tiri miyayna jirin weli xilligaa haween aanan ahayn Khadiijo uun yacni waxay ka turjumaysaa hinaasaha ama qiirada qalbigeeda gashay Caasha radiallahu canha waana wax dabiiciya Khadiija waxay ku geeriyootay Maka intii aanan loo hijroon Madiina ayaa waxay ku geeriyootay Khadiija Maka iyadoo 65 jir ah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaana gacantiisa ku aasay waxayna geeriyootay isla sanadkii uu geeriyooday adeerkii Abu Daalib oo runtii ahaa shaqsiga ka ilaaliya dhibaatada ama cadowtinimada Quraysh ee mar walba garab siin jiray ilaalin jiray ayaa mar waxay wada geeriyooday isku sanad xaaskiisii oo adduunka ugu jeclaa ee caruurtiisoo dhanna u dhashay runtii waqtiyo badan oo adag la soo martay taasoo awna nabigu calayhi salaatu wasalaam oo Khadiija intii ay xaaskiisa ahayd ay noolayd awna la guursanin kadib markay geeriyootayna sanado kadib au guursaday nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi au dumar kale guursaday ummahatal mu'miniinka kale sanadkaasi waxaa loo bixiyay caamal xusn waa sanad aad iyo aad nabiga ugu murugo badnaa ayuu ahaa 2 qof oo noloshiisa qaali ku ah oo garab iyo gaashaan u ahaa ayuu waayay waa sanad nabigu calayhi salaatu wasalaam oo aad iyo aad ugu murugooday Khadiija waxay ahayd qof aad iyo aad runtii u wanaagsan oo gacan ku soo siisay diinta islaamka inay faafto gacan lixaad loo aad u weyn soo siisay ayaa ahayd ilaahay raaliga ka noqday nabiguna uu ahaa iyadii oo nool iyadii oo geeriyootayba ka mar walba wafiga u ah ee ku faana ee jacaylkeegiina ka sheekeeya ayuu ahaa mar walba Allah raaliga ka noqdo Khadiija bint Khuwaylid xaaskii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dhammaan ummahatul mu'miniin xaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam on qaar ka midana insha Allah ayagana ka sheekeyn doona aad iyo aad ayaan idin salaamay intaasan kusoo gabagabeynaya maanta intaan sheeko kale ku kulmayna waxaan ilaahay saa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.